in la qaban qaabiyo xaflad aad u qurux badan una qabsoonta sida ugu wanaagsan uguna munaasibsan uguna macquulsan iskama qabsoonto ee waxa jira cid suuragelisa inay u dhacdo sida loogu talagalay ama ugu quruxda badan shaqo waliba oo lagu qabto si wadar iyo wadajir ah waxa ka soo baxaya natiijo aad u qurxoon xafladaha 26 Juun iyo 1 Luulyo waxa la wada qiray in loo qabtay una soo gabagaboobeen sida ugu wanaagsan uguna bilicsan haddaba sidee ayay ku suura gashay qabsoomida xafladahani maalmaha xorriyadda xafladaha 26 Juun iyo 1 Luulyo ee maalmihii xorriyadda loogu dabaaldegay si wanaagsan ay nagu qabsoomeen sida aad ka aragteen munaasabadaha qaabka u dhaceen iyo jawiga magaalada sida ahayd waxaana taa kaga mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho ee runtii u dhaganugla hawlaha iyo awaamiirta ay soo saareen maamulka gobolka Banaadir isla markaana u firfircoonaaba inay nagala qayb qaataan habsamo socodka haddii noqoto amniga qurxinta iyo dhan waliba ee suurtagelinayay inay qabsoonto xafladahaas quruxda badan ee dhacay 26 Juun iyo 1 Luulyo qabsoomida xafladahani 26 Juun iyo 1 Luulyo sidii ay u qabsoontay looma kala harin si wada jira ayaa looga qayb qaatay dawlad iyo shacabba waxaa jirtay door weyn uu ciyaaray maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan waaxda xiriirka dadweynaha oo suurageliyay isku xirka maamulka iyo bulshada midaas oo laga taabageliyay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir haddaba sidee ayaa la isugu xiray maamulka gobolka iyo shacabka ee ku aadan munaasabadaha maalmaha xorriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo runtii waxay ahaaday maalmo aad qaali u ah had iyo jeer maamulka gobolka Banaadir iyo mujtamaca ku nool gobolka Banaadirba aad isugu xiran yihiin ma hadda ilaahay ka suko waxa iska leh maamulka sare ee gobolka waxay ahaaday maalmo aad u qurux badan qof kasta oo Soomaali ah aad u daneynayay u qiimo badan dabcan diyaar garowgeeda waxaad ka dareemi kartaa sida quruxda badan ay wax u dhaceen hawsha qabanqaabada iyo qabsoomida munaasabadaha maalmaha xorriyadda ayaa waxaa la geliyay dadaal aad u baaxad weyn iyo shaqo aan kala joogsi lahayn qof waliba oo ka qayb qaadanayay qabsoomida hawshani ayaa waxa ay ahayd mid qof waliba uu laabta ku hayay inuu ka soo baxo mas'uuliyadda ka saaran dalka iyo dadka waxaana halaysa saaray mas'uuliyad gaar ah wadaniyadna xambaarsan tahay iyo xamaasad aan kala joogsi lahayn ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa ka mid ahaa dadkii sida ugu wanaagsanayd uguna dadaal badnaa uga qayb qaatay qabsoomida xafladahani quruxda badan haddaba maxay ahayd kaalinta ururka haweenka gobolka Banaadir ee munaasabadaha 26 Juun iyo 1 Luulyo ee 2018 doorka haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka gobolka Banaadir aan kulayn waxay ahayd kaalin muuqata oo runtii aan isleeyahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu qirayaa waxqabadkii haweenka dabcan waxaan ku lahayn waxaan ka mid ahaa guddigii qabanqaabada munaasabadda heer gobol runtii waxaan kaloo aaminsanahay munaasabadan waxay ahayd munaasabad aad iyo aad uga duwan marka aragto abaabulka isku dubaridka iyo sida ay wax u socdeen waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo prime ministerka haday noqon lahayd gudoomiyaha baarlamaanka xukuumadda oo isku duuban dhammaan iyo maamulka gobolka Banaadir oo ahmiyad gaar ah u siiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu soo saaray wareegto maaragtay hordhac ahayd oo magaalada haday noqoto bilicda haday noqoto isku dubaridka abaabulka degmooyinka heer gobol iyo heer degmo waxaana ka soo baxay natiijo aan isleeyahay waxa ku qancay ummadda Soomaaliyeed maanta markii dilkeena maanta lama madin karaayo maanta waa maalin weyn maanta
intii lagu guda jiray maalmaha xorriyadda ayaa cid waliba dadaal dheeraad ah muujinaysay iyada oo si wadar ah looga qayb qaatay munaasabadahani sida xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada xafiiska baarlamaanka maamulka gobolka Banaadir heer gobol ilaa iyo heer degmo haddaba maxay ahayd kaalinta gobolka Banaadir ee munaasabadaha 26 Juun iyo 1 Luulyo runtii kaalinta maamulka gobolka Banaadir ee munaasabadaha maalmaha xurriyadda wuxuu ahaa in runtii la wacyigeliyo shacabka Soomaaliyeed in ay si nabad ah ku qabsoomaan xafladahaas quruxda badnaa inay gacan ka geystaan maamulka gobolka Banaadir sidii magaaladan ee ah caasimadda dalka Soomaaliya loo qurxin lahaa isku soo bax ballaaran ee ka dhacay Stadium Muqdisho oo gacan weyn uu ka geystay maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale in shacabka maalmihii xurriyadda lagu jiray loo fududeeyo howlo badan ay ka mid yihiin isku socodkii oo kale oo markii ugu horeysay maamulka gobolka Banaadir basas waaweyn oo gaaraya ilaa 19 bas magaaladan Muqdisho ay ka howlgalayeen si ay shacabka u dareemin dhinaca amniga culeyskii saarnaa magaalada isku socodkiina loo fududeeyay wax walba oo loo diyaar garoobayo maaha wax sahlan gaar ahaan mar haddii la isugu keenayo kumanaan dad ah diyaar garowga sidiisaba maaha hawl sahlan in loo diyaar garoobo xafladahan iyo munaasabadahan culeyska ay lahayd ma garan karo qof tijaabiyey maahane haddaba sidee ayuu ahaa diyaar garowga munaasabadaha 26 Juun iyo 1 Luulyo ee 2018 runtii waxaan dhihi karaa waqti badan ayaa la geliyay waxaana markaati ka ahaaday sida ay wax u dhaceen isbuuc ayaan dhihi karaa waqtiga ugu badan horta waxaan waa wax mar kasta dhaco oo lagu xisaabtamo oo maamul kasto markaas mas'uuliyadda haayo haddii shaqaale ahaa lahaayeen iyo haddii ahaa lahaayeen mujtamacba waa waxay maskaxda ku haayaan laakiin waxaan dhihi karaa habeenadii ugu dambeysay isbuucii ugu dambeeyay ayaan juhdi badan gelinay annagoo shacab iyo shaqaalaha dawladda hoose la iswada kaashanayo marka habeena badan ayaa loo dhafran dhihi karaa alxamdulillah ilaahay waa nagu guuleeyay amaantaas ilaahay baa iska leh thumma maamulka gobolka Banaadir gudoonkiisa sare munaasabadahan intii la qaban qaabinayay waxaa ka qayb qaatay dhinacyo kala duwan oo ay ku bixiyeen dadaal nooc walba leh haddaba yaa ka qayb qaatay qabsoomidda munaasabadahani maalmaha xorriyadda waxaa ka qayb qaatay madaxweynaha dawladda federaalka ugu horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii guddigii heerka qaranaha ee golaha wasiirada uu magacaabay prime ministerka gudoomiyaha guddiga qabanqaabada oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta waxaan isleeyahay xubinna uu ka ah heerka qaran gudoomiyaha gobolka Banaadir oo runtii haday noqoto dhaqaalaha haday noqoto maaragtay isku xirka haday noqoto abaabulka iyo gudoomiyaasha 17 degmo gudoomiye ku-xigeenada amniga iyo siyaasadda maamulka iyo maaliyadda arrimaha bulshada xogeeyaha guud madaxda ugu sareysa gobolka Banaadir ayaa si degan oo jawi aad u qurux badan bilicda iyo nadaafadda dhinac socotay agaasimaha nadaafadda ayaan kaga mahad celinayaa qaabka iyo doorka ay ka qaateen nadaafadda sidoo kale waxaan u mahad celinayaa agaasimaha dhismaha Bashiir Shoombo iyo Goodax oo runtii haday noqoto dhirayntii iyadana ay qayb ka ahaayeen waaxda jardiinooyinka waxa moodaa maamulka gobolka oo isku duuban in si gaar ay u shaqeynayeen sidoo kale gudoomiye Basmo waxay midaan fariisanayeen gudoomiye Tuulax waxaan mar walba aan maragtay iyo waaxda maragtay agaasimaha nalalinta iyo qurxinta magaalada oo ayagana maragtay muuqaalka goobta wax badan ka bedeleen waxay ahayd maamul isku duuban oo si gaar ah amoodo in hab maamuus loogu sameeyay 26 iyo 1 Luulyo oo ahayd laba maalin oo ummadda Soomaaliyeed ay u yaqaanaan toddobaadka xorriyadda
caasimadda muqdisho ayaa si weyn ugu diyaar garowday maalmaha xorriyadda gaar ahaan 26 juun iyo 1 luulyo caasimadda waxay ku labisatay oo meel walbana laga taagay laguna xardhay calankeena buluuga ah dhexdana ku leh xidigta cadda ee shanta gees leh meel kasta ayaa lagu xiray goob walba ayaa laga lulay meherad kasta ayuu ka dulbabanayay magaalada muqdisho ayaa waxay noqotay meel aad u qurux badan bilicdeedana muuqata haddaba qaabkee ayay ku dhacday qurxinta caasimadda ee u diyaargarowga munaasabadaha 26 juun iyo 1 luulyo ee sanadkan 2018 runtii kaalinta maamulka gobolka banaadir ee munaasabadaha maalmaha xurriyadda wuxuu ahaa in runtii la wacyigeliyo shacabka Soomaaliyeed in ay si nabad ah ku qabsoomaan xafladahaas quruxda badnaa inay gacan ka geystaan maamulka gobolka banaadir sidii magaaladan ee ah caasimadda dalka Soomaaliya loo qurxin lahaa isku soo bax ballaaran ee ka dhacay Stadium Muqdisho oo gacan weyn uu ka geystay maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale in shacabka maalmihii xurriyadda lagu jiray loo fududeeyo howlo badan ay ka mid yihiin isku socodkii oo kale oo markii ugu horeysay maamulka gobolka banaadir basas waaweyn oo gaaraya ilaa 19 bas magaaladan muqdisho ay ka howlgalayeen si ay shacabka u dareemin dhinaca amniga culeyskii saarnaa magaalada isku socodkiina loo fududeeyay hawl kasta oo la qabanayo waxa ka soo dhex muuqda caqabado haddaba ma jirtay wax caqabad ah oo lala kulmay intii ay socotay qabanqaabada iyo qabsoomidda munaasabadaha 26 juun iyo 1 luulyo ee sanadkan 2018 runtii caqabaduhu ma la koobi karo laakiin waxaan dhihi karaa xaaladaha security-ga markii la yiraaho ayaa waxa hadda aan isdhihi karo waa ugu dareed ah maxaa yeelay dabcan waa dareemi kartaa kumanaan kun oo qofood meel isugu imaanayaan xaaladda amaanka adduunka oo hadda marayna aad ogtahay caasimadaha horu maray iyo wadamada macnaha horu maray caqabadaha ay kala kulmaan security-ga annagoo Soomaali ah annagoo og xaaladda aan ku shaqaynayno waxa ugu badan oo hadda xasuusta igu reebtay waxay ahaaday mar kastaba ka fikiritaanka oo amaanka ah maxaa yeelay 40 kun 50 kun oo qofood meel isugu imaanayaan waa mas'uuliyad gaar ah marka waxa igu yaabka badan caqabadaha ugu culus waxay ahaaday arrimaha la xiriiro amaanka caqabadaha waxa kamid ah dabcan toddobaadka xorriyadda qayb ayay ka yihiin haweenka Soomaaliyeed waxa qayb ka ah in 26 Juun waxa ka hadashay Fawsiya laakiin 1 luulyo inaanay gabar haweenka Soomaaliyeed aan lagu xusinin oo dabcan anagu waxaan kamid ahayn gabdhaha Soomaaliyeed
war ka bixin waqtigii maaragtay la dhihi jiray waxay iibiyeen dahabkooda waxay ku dhaleen xabsiyada waxaan nahay dad muuqda oo shaqaynayo waxay aniga ila ahayd marka caqabada ugu weyn inay ahayd in habeenkaas aanay suurtagal noqonin in haweenka Soomaaliyeed ay ka muuqdaan ama ay ka hadlaan ama soo lagu xuso waxay ahayd aan isleeyahay wax u baahan tan dambe in lagu saxo waxa kale oo caqabad aan u arkayay waxa joogay SYL dhalinyaradii u dhimatay dalka u soo halgamay caruurta ay dhaleen ayana way mudnayd in la siiyo waxay ahayd ayadana weak point oo markaas aan u arkaynay in dhalinyaradaas ay dhaleen maaragtay raggaas madaxda ah ama awoowayaashii u ahaayeen in taariikhdooda la weydiiyo ayadana way ahayd waxyaabaha kale oo markaas anu waan isleeyahay waa caqabado waxa markaas iga bedelayay dareenka guud oo aan qaadanayna wuxuu ahaa wada shaqaynta tiimkii madaxtooyada iyo abaabulkii isku xirkii iyo maaragtay nashaadkii quruxda badnaa ayaa wax walba anagu aan tabanaynay mar walba aan u arkaynay wax aan macno lahayn waayo maalintan waxay ahayd maalin loo soo dhintay maalin ummadda Soomaaliyeed ku weyn marka qof walba oo Soomaali ah waxa uu tabanayo wuxuu ku iloobayaa in dhiig loo daadiyo xorriyadda in loo dhintay marka ma aha inaan wax tabanay waa inaan wax saxno dhammaan madaxda qaranka ayaa si weyn uga mahadceliyay guddiga qabanqaabada ee maalmaha xorriyadda gaar ahaan dadaalkii ay ku bixiyeen in munaasabadahani u qabsoomaan sida ugu wanaagsan uguna quruxda badan qabanqaabada waxaan jeclaan lahaa inuu noqdo guddi joogto ah oo aysan ahayn oo kaliya munaasabadan nagu weyn laakiin aan soo diyaarino munaasabadaha soo socda haddii Ilaahay yiraahdo iyo 2019 26 26 June iyo 1 July 2019 iyo xafladaha kale iyo munaasabadaha kale soo socda oo loo baahan yahay runtii inaan dadka ku dhiirigelino wadaniyada iyo Soomaalinimada iyo midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed maalmaha xorriyadda sida iyadana wanaagsaneed ee wada shaqaynta fiican maamulka gobolka iyo dhammaan hay'adaha dawladda iyo guddiga heer qaranba iyadana way kaga mahadcelinaynaa Thank you.